بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel aad joogtaan ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku ammaan yeelo. cidii dhibka Allah ka qaado, cidii dan la Allah uu fiyo, inta baahan Allah deeqo, inta bugta Allah bogsiyo, intii dhimatay Allah u naxariisto. waalidiinteena Allah u naxariista, annagana Allah nooga daba naxariisto. dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlaynaa laba qodob. qodobka koowaad waa qarixii godka Jilacow. qodobka labaadna waa xeerkii caruurta ee la baasiyay ee muranka badani ka dhashay walina jooga aqalka sare. ilaahay subxaanahu wa ta'aala intii ku dhimatay ha u naxariisto, intii ku dhaawacantayna ha u boogadhayo. shuhadada ciidamada qarankana ilaahay subxaanahu wa ta'aala shahaadadooda ha u aqbalo. mujrimiintii soo duulay iyo intii ka qayb qaadatayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala gacan adag ha kaga qabto ummadda kuwooda nool, kuwooda dhintayna naarta ha ku fogeeyo. allahumma aamiin. intaa kadib dowladda talooyin baa siinaya. wadooyinka la furayo wixii aan danta dalka iyo dadku ku jirin furisteedu macno ma samaynayso. inay wadda naga xirnaato, in dad naga dhinto, in dad naga dhintaan noo daran. wadda intay naga xirnaato inaan kor ka wareegna laynoo qaataa. aragti dowladda lagu khilaafo oo badan baa jirtee wixii amniga taabanaya yaan la buunbuunin. qodobka labaad, maxaabiis baa ku xirnayd baa layiri godka Jilacow, al-shabaab ah. de in la ogaadaa khalad wey. al-shabaab meeshu ku xiran yahay in la ogaada khalad wey. waa marka koowaad. waa marka labaad, al-shabaab inuu noo xirnaada maaha. al-shabaab ha laga guto sharciga, degdeg ha loo mariyo. haddii ay ku caddaato dembiga al-shabaabnimada degdeg ha laysu dhaafiyo. musiibo weeye in cunto la siiyo oo hurdo la siiyo oo biyo la siiyo ma mudna. degdeg ummadda ha loo dhaafiyo. mujrimka argagixisada hal khaarijiyo, hal isdhaafiyo. qodobka labaad, ganacsatada iyo cid alla ciddii ka qayb qaadata, haweenka maxkamadaha la saarayo degdeg ha loo dhaafiyo ummadda. waa xubin kansar ah oo jirka ku taala, degdeg in loo jarayna u baahan tahay. ummadda ha la dhaafiyo. ilaahayna ummadda ha ka qabto. ciidamadeenana guul ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo garab istaag ha siiyo subxaanahu wa ta'aala. intaa markaan ka gudbo waxaan ku hormarayaa aayad qur'aan. ilaahay wuxuu yidhi: yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilahi shuhada'a bilqisti walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa. dadka ilaahay rumeeyeyo markhaati ka noqda, ilaaliya, fogeeya, dul istaaga, faafiya cadaaladda. qolo inaa ishaysaan darteed cadaaladda ha uga teginina. xataa qofka mucaaradka ku tahay oo iska soo horjeedaan sii xaqiisa. ma ujeedaa? soomaalidu mahmaha bay leedahay gaal dil gartiisana siiya. macnaheedu waxa weeye qofka gartiisa sii, xataa gaal hadduu yahay aad la dirirayso o aad dilaysa, xaqiisa sii oo ha ka hor imaan cadaaladda. icdiluu huwa aqrabu litaqwa. amar weeye, cadaaladda sameeya. saasaa alla rabaa, u dhowna taqwadana u dhow. haddaa aakhiradaada dan ka leedahay cadaaladda ha ka tegi. mucaaradow tacliintan qaata. mucaaradnimadu ma aha dowladda wax alla waxay samayso khalad iyo saxba inaad ka soo horjeesatid. mucaaradnimadu waa inaad bannaan tahay, dalka inaad dhisaysid wey. wixii dowladdu ku saxan tahay inaad garab istaagtid, waxay ku khaldan tahayna ka soo horjeesad. xasan baan mucaarad ku ahay macneedu maaha xasan markuu saxan yahay inaan inkiro ama aan ka soo horjeesto ama aan been ka sheego. mucaaradnimadu saa maaha. waxa weeye markuu khaldan yahay inaan farta ku fiiqo, tooshka ku ifiyo. isaguna waa inuu ogaadaa inuu bini aadam yahay. kullu bini aadam khata wa khayru khata'ina tawaabuun. qof kastoo bini aadamna waa gafaahay intuu khaladkiisa arko inuu ka soo laabto oo markaa wixii khaldanaa saxo, oo markaa dalkii dantiisii ay fogaato oo hirgasho oo horumar la gaaro. ujeeddada aad leedahay oo xun mucaaradaysidna waa inay intaa noqota. qasadkaagu hadduu saa yahay ajar baad ka helaysaa, cibaaday kuu tahay. haddii qasadkaagu yahay xasan xumee ama lugo ama lugta qabo, waxaago dhan waa baatil. wixii baatil lagu dhisaana aakhiro iyo adduun midna faa'iido male. ma ujeeda? adaana xumaanta kugu soo noqonaysaa. laakiin haddaad qasadkaagu yahay inaad wax la saxo, wax la toosiyo, dowladduna waa ku dhegaysanaysaa markay ogaato inaad cadaalad u samaynaysid. miidiyaha awood iyo cudud buu leeyahay miidiyo, laakiin waa markii qofka miidiyaha fadhiyaa uu leeyahay kalsoonida shacabka u haysto. waa in fiqa lagugu qabi karaa, waa inaadan beenaalo ahayn, waa inaan lagu gadan karin.
haddaa beec tahay oo been sheegto laba dembi baad ilaahay ka gashay subxaana wa tacaala laaluush baad qaadatay oo xaaraan ku qaadatay oo ilaahay subxaana wa tacaala kullu laxmin nabata min suxtin fannaaru awlaa bihi buu yidhi nebigu sal alla ly slam hilib kasta oo xaaraan ku baxa naar baa u awlaysan oo xaq u leh naartaad ku gelaysaa qodobka labaad oo aad dembiga ka gashay waa xogta iyo warka been baad sheegtay calaamaadkii munaafiqana waad yeelatay nebiguna wuxuu yidhi sal ly slam ummadda waxaa ugu shar badan qofka been inta sheega beentiisa ay aafaaqda gaarto mashriq iyo maqribba ay ka dhacdo maanta waad ogtahay 7 qaaradood waa lagaa dhegaysanayahay been ummadda ha u sheegi haddaad miidiyaha ku jirtid xildhibaanka waa qodobkayga labaad waa tacliimin xildhibaanka aan ugu talagalay war xildhibaan shaqadaada baro waxa aad tahay ogow daljir baa tahay dadka soomaaliyeed baad matashaa waxaad ku matashaa sharciga qaybta sharci dejinta waxa alla wixii xeer u noqonaya ummadda maxkamadahana la geyn doono booliiskuna ku dhaqmi doono adigaa asal u ah waxaad haysataa xeerkaaga qodobkiisa labaad waxaa ku qoran diinta islaamka wixii ka hor imaanaya waa nalan void waxba kama jiraan waa bursan yahay xataa haddaad xeer baasisaan oo qodobkaas diinta uu ka hor imaanayo waxba kama jiraan lagumana dhaqmi karo askartuna ma fulin karto maxkamaduhuna kuma dhaqmi karaan waxaan kaloo rabaa inaad ogaatid inaad tahay duljoogtayn ama korjoogtayn ama ilaaliyaha xukuumadda uma shaqaysid waxaa nasiib darro ah ilaa 130 xildhibaan inay mushaar ka qaataan xukuumadda oo $2,000 qaataan bishii inna loo caddeeyey aadan madoobe intuu qaata ma naqaan hadalkaas uu yiri baana caddaynaya inuu nin xukuumadda ku milmay oo ka tirsan yahay 2 kalmadood buu ku hadlay midna waa sax oo waa ku taageeraynaa midna waa khalad oo waa ka soo horjeesanaynaa wuxuu yiri heshiisyada ka yimaada xukuumadda oo ay soo ansixiyaan oo iyagu ay soo qoraan waxba kama bedeli karno sidaa darteed akhriska labaadba waa isku dhaafinaynaa waa ansixinaynaa hadalkaas sax maaha xildhibaan waxaad meesha u fadhidaa xukuumaddan inaad ka ilaalisid sharciga iyo dastuurka oo iyada aad ilaalisid oo wixii ay ku xadgudubto aad ka qabatid oo hadday diidaan inay sharciga ilaaliyaan aad shaqadaba ka qaadaan idinkaa shaqada u dhiibay idinkaa ka sarreeya siyaadada idinkaa leh ma aha inaad u sheegtid xildhibaanada wax ka hor imaanaya wax marka la leeyahay shaqada marka hore oo la abalay garaynayo waxaa la rabaa qofka in laga eego 2 arrimood in laga eego horta aqoonteedii ma leeyahay xilka uu raadinayo aqoontii uu ku maamuli lahaa ma leeyahay waa marka labaadee kafaacadii shakhsiga ahayd ma jirtaa caqli fiican oo ku filan ma leeyahay ma yahay qof xor ah oo ka madax bannaan sida baahi iyo magaranaysaa black meel kale oo laga maamulan karo qof la maamulan kara ma yahay mise waa qof madax bannaan hadduusan madax bannaanayn shaqada in loo dhiiba maaha hadduusan aqoonteedii lahaynna in loo dhiiba maaha xildhibaan dhan oo guddoomiye ah oo hadda ka horna guddoomiye ka soo noqday baa intuu soo istaago wuxuu leeyahay xildhibaan wixii xukuumadda ka yimaada oo sideeda lagu dhaafinayo waxba kama bedeli kartid haddaad akhri saddexaad la aadid iyo haddaadan la aadin waa isku mid waxna kama bedeli kartid waxaasi waa khuraafaad wey waa qof aan garanayn shaqada uu fadhiyo iyo kursiga uu fadhiyo iyo wuxuu meesha u fadhiyo midna in loo dhiibana nasiib darray ahayd ummadda soomaaliyeed ku dhacday qodobka wuu ku khaldan yahay xildhibaanadu xaq bay u leeyihiin inay ilaaliyaan dastuurka iyagaa iskale shaqadoodii wey maxkamaduhu sharciga baasisaan bay ku ilaalinayaan iyaguna dowladdu inay fulisay iyo in kale maxkamadda lala aadaya waa la dacweynayaa markaasaa yani saas oo kale dib marka aan ugu noqdo xeerkii laysku qabsaday maxaa ka runa maxaase ka beena xeerka wax diinta ka hor imaanaya in la baasiyey waxba kama jiraan dowladdu bogaadin iyo ammaan iyo magaranaysaa bay naga helaysaa waxaase ammaanta koowaad iskale culimada muslimiinta ee la shaqaynaya xukuumadda ee ka soo guray oo ka soo lafa guray oo ka saaray khaladaadkan 5 ah oo markii dambe 5 noqday mar 4 ahaa markii dambena 5 noqday anigu markii aan arkay xildhibaano bannaanka ka hadlaya oo ka qaylinaya arrinta oo le diintii baa lagu xadgudbay horeyna aan u daba socon jiray oo ilaalin jirnay xeerarka laga baasin doono dastuurkeena la dhex gelin doono baarlamaankana laga baasin doono aan ilaalin jiray markiiba toosh baa ii daarmay iyo alert
waxaa kaloo isoo gaaray fariimo aad u badan oo leey maad ka soo hadashii war shiiqow ka hadal war arrintan ka hadal kadib waxaan sameeyey baaritaan waxaan la hadlay madax waxaan la hadlay culimadii loo geeyey qaybo ka mida waxaan la hadlay oo waxaan raadiyey dokumentigii iyo sharcigii loo soo gudbiyey ama qaraarkii loo soo gudbiyey baarlamaanku ay baasinayeen waxaan akhriyey warqadda ay qortay wasaaradda arrimaha dibaddu tan xafiiska prime minister akhriyey tan xafiiska prime ministerku soo qoray waxaan akhriyey tii ay qortay wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka waxaan akhriyey tii uu soo qoray attorney generalka ama qareenka guud ee Soomaaliya dhammaantood markii aan intaasoo dhan waxaan la hadlay xildhibaano iyo senataro intaa markaan sameeyey waxaan soo ogaaday 5 qodob oo ku jiray heshiis caalami ah oo Afrika 53 wadan oo kamid ay saxiixeen in dawladda Soomaaliya ay ka maqan tahay ayna rabto inay ka mid noqoto isla markaasna la rabo inay marka iska fiiriso maadaama sharcigu ka yimid dadaan wada muslim ahayn inay iska eegto la rabo inay iska eegtay iska baartay 5 qodobna ku qabsatay intii kalena ansixisay 5 qodob marka oo ay kala hareen culimadu warqadda dheer oo 33 page ahayd oo prime ministerku u gudbiyay baarlamaanka 5 qodob waxaa lagu sheegay kan ugu horeeya waa qodobka labaad ee xeerka oo ahaa qeexidda da'da caruurta maadaama laga hadlayo caruur horta caruurta in la ilaaliyo xuquuqdooda iyo badqabkooda la baxnaaniyo si wacan loo barbaariyo diintooda lagu koriyo dhaqankooda la baro akhlaaqdooda la ilaaliyo kor loo qaado waa sharci diina waa xuquuqda waalidka uu ku leeyahay ilmaha iskale xuquuqdaas waalidkii ilmihii waa laga qaadi karaa waxaa laga qaadi karaa inuu dayacayo kasu dayacayo kuwa waxaan aragnaa intay soo galaan TikTok ilmo yar yara haraanti la dhacaya iyo kuwa ulaynaya iyo kuwa dilaya iyo kuwa dhibaataynaya iyo ilmo yar yar oo iska dayacan oo rafaadsan oo cid u qareenta iyo cidna aan lahayn ilmo yowgaas ama dayaca kaska loo geystay ama waalidkii uba korin kari waayay fakhri iyo dhaqaale ku yimid darteed ama caafimaad xumo ku timid darteed ama cudur maskaxeed oo ku dhacay darteed waa looga qaadi karaa marka maadaama laga qaaday macnaheedu maaha xuquuqdii ilmaha in lagu xadgudbay ama tii waalidka lagu xadgudbay waa laga qaadi karaa laakiin waxaa fiican in lagu ilaaliyo oo lagu koriyo gurigiisa oo marka 5 qodob aan dib ugu laabto caruurta da'deeda xagee bay ku egtahay wadamadan aan hadda joogno gaalada aan muslimka ahayn 10 jeer isbedeleen hadda waxay marayaan 18 waxaa laga yaabaa 21 inay gaarsiiyaan adigu marka ma isla bedelaysaa ma iska daba ordaysaa meeshay galaan baa ka daba gelaysaa gaalo mise diin baa leedahay dhaqan dawladdeenu waxay diiday qeexidda da'da caruurta annagu shareecaan leenahay idinkuma waafaqsanin afrikaano qodobkaa waa ka harnay qodobka labaad waxay sheegeen qodobkii 9aad ee xeerka waxa uu siinayaa xorriyad fikir iyo damiir iyo diin caruurtu intaa midna ma laha way fikri karaan damiir ahaanna damiirkooda xor weeye laakiin diintooda xor ma qofka muslimka ay diintiisa xor uma aha kama bixi karo diintiisa marka waalidka iskale inuu ku ilaaliyo oo diintooda kobciyo oo baro qodobkaasna way ka reebeen diinteena islaamkuna ka hor imaanaya qodobka 3aad waxa weeye oo ay ka reebeen xeerka qodobkiisa 10aad ilaalinta nolosha gaarka ah ilmuhu inuu sir yeesho arrintaas waxay ku xadgudbaysaa waalidka annaga halkaan joogna ilmuhu sir nagaba yeelan karo dhul gaalaanna joognaa annagana leeyahay ilaaliya ilmihiina sirtooda baara oo ka warhayo ilmuhu sir ma yeelan karo telefoonadooda internetka markaan siinayno telefoonna siinayno internetka inaan restrict garayno oo la yiraahdo parental restrictions baan xaq u leenahay oo nala siiya oo ku jira internetka nala siinayo waana dhul gaalo marka qof Soomaaliyeed oo muslim ah waxa leeyahay ilmahaagi sir buu leeyahay ha ka warhayn xogtiisa gaarka ama ogaan kartid qodobkaasna way ka reebeen qodobka 5aad oo ay ka reebeen qodobka 4aad oo ay ka reebeen farqadiisa labaad qodobka 12aad ee xeerka farqadiisa labaad ayaa waxay ka hadlaysay guurka xilligeeda iyo alkumida ilmaha goorma ilmaha la guursan karaa child marriage iyo goorma ilmaha la dhisi karaa arrinta iyada ah diinteena islaamka qeexday afrikaan ugama baahnin
sidaasay tiri xukuumaddu wayna ka reebtay qodobka ugu dambeeya oo keeda shanaada waa qodobka 24aad ee xeerka oo ah korsashada ilmaha ama adoptionka waxa la yiraahdo tabaniga ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa ka hadlay udcuhum liaabaa'ihim wa aqsatu cinda allah ilmaha inaad adigu korisid waalidkiis in laga qaaday sidii la doono lagaga qaaday macnaheedu maaha waalidka in laga siibayo ama laga murxinayo xuquuqdii waalidnimo oo uu ku lahaa ilmaha oo aabihii iyo hooyadii inta laga saaro aabbe iyo hooyo kale loo samaynayo arrintaa diintu ma ogola mana banaana waxaana lagu fuliyey Zayd ibn al-Haritha radiyallahu anhu oo ahaa waagii hore nabiga korsaday wiil nabigu koriyay ahaa Zayd ibn Muhammad la dhihi jiray tabanigu waa banaana markii diinta islaamku aayadaas soo degtay suurat al-Ahzabna waxaa loogu yeeray Zayd ibn al-Haritha marka waxay xukuumaddu ku mahadsan tahay kuna amaanan tahay iyadoo laga bilaabay culimada iyo xukuumadda iyo dawladdu inay arrinta sidaa u fuliyeen waa ku mahadsan yihiin waxaa kuu soo haray aadan madoobe muxuu ku saxan yahay wuxuu ku saxan yahay arrintan inuu taageero iyo inuu ansixiyo iyo inuu yiraahdo waxii khaldanaa waa laga saaray gudoomiye ku-xigeenkii guddiga arrimaha dibadda oo sharaxayayna sidaas u sheegay qodob baa jiray gudoomiye ku-xigeenku sheegay nin xildhibaanana uu ka hadlay oo ahayd yaan dhaweyda ay dastuurka baasinayeen ba waxay ku dareen ilmaha da'doodu waa 18 waxaa wadatay Norway xeerkii kufsiga iyo balaayada iswatay oo aan la dagaalami jirnay oo wasiir shaqada ay ku waayeen kuwa kale ay 4 saac ugu diriri jireen maxay ahayd gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ay nagu soo weerari jirtay Sacdiyo ayuu ahaa marka waa la dhex mariyay qodobkaas 18 haddana uu sheegay wuxuu yiri qodobkaas baarlamaanka ku jira hadda ka hor timaadeen 18 idinkii xukuumaddiinni iyo baarlamaankiinni oo dhan oo iswata waa in laga saaraa baarlamaanka qodobkaas dastuurka waa in laga saaraa bedelkii aad bedesheen waagii dhaweed khalad buu ahaa hadeerna ka saara waxaan kaloo rabaa qolada aqalka sare oo hadda ka codaynaysa arrinta iyagana inaan ku iraado 5 qodob oo ra'iisul wasaaruhu soo saxiixay xukuumadda ay soo baasisay baarlamaanka hoosena soo maray 5 qodob ka eega kana hubiya inaan la idin marsiin 5 qodob haddii ka maran yihiin inta kale annagu dacwo kama qabno mushkilana waxaan ku waafaqsanahay culimadii akhriday say u akhriyeen oo ay u arkeen inay wax caadi yihiin oo normal baan iyagana ku waafaqsanahay sidaa ku sii daayay laakiin 5 qodob iska hubiya 18kiina ka daba taga yaanti horaad khaldanteene maanta saxa maadaama uu ka hor imaanayo qodobka labaad ee dastuurka oo ah diinta islaamka ayaa dalka sharci u ah sharci kastoo ka hor imaanaya diinta islaamkana waa null and void ay kor idinku qoran tahay isagii fuliya oo 18 ka tuura qaangaarka waxaa diinta yadaa taqaan halkaa kaga hara diinta islaamka wixii ay qaangaar u taqaan baan anaguna u naqaan haddaan nahay Soomaali maxaa yeelay muslim baan nahay si guud dawladdu way ku mahadsan tahay shaqada ay ka qabatay xeerkan inay baasisana danta dalka ku jirta oo dawladdu inay kamid ahaato ururada caalamiga danta iyo horumarinta dawladnimada weey waana loo baahan yahay intaasan oranaya billahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.